waxaa la yidhi hadda ka hor ayaa been hawaas jiray. Waxa uu ahaa sidaan sheekada hore usoo qaadanay nin damac badan. Waxa uu dhistay guri aad iyo aad u weyn. Guriga hortiisana waxaa ku yaalay geedkaasoo dadka ay jecel yihiin in ay hoos harsadaan. Laakiin been hawaas ma ogoleen geedkiisa in lagu nasto asaga oon lacag laga siinin. Markay dadka soo fadhiistaan aad iyo aad ayuu xanaaqi jiray. Guriga ayuu ka soo bixi jiray. Dadkana waa uu ku qeylin jiray. Asaga oo ku dhahayo qofkaan lacag iska dhiibeynin ha iska baxo ha iga kaco geedka. Dadkii oo shilimaad ka qaatana way ku nasan jireen. Sheekadii been hawaas iyo geedkiisii magaaladii oo dhan ayay gaartay waana la isku sheegay in uu yahay nin damac badan geedkana uusan u ogoleen qof inuu harsado ilaa uu lacag ka qaato maahine. Sheekadii ayaa waxa ay gaartay nin aad iyo aad u caqli badnaa ee dadka magaalada ka mid ahaa. Waxa uuna damcay dhibaatada dadka haysata in uu ka qaado oo been hawaas oo meel saaro. Sababtoo ah jidka weyn ee magaalada laga soo galay ayuu geedkaas ku yaalay. Dadka ayaga oo daalan ayayna meesha imaanayeen. Waxa uuna soo aaday meeshii oo been hawaas deganaa geedkii ayuu seexday. Hurdo fiican oo raaxo lehna waa uu seexday ileen geedka waxaa geed aad iyo aad u qaboobay. been hawaas oo suuqii ama magaalada ka imaaday gurigiisii soo galay ayaa waxa uu arkay ninkan jiifa geedkii hoostiisa jiifo. Asagoo qeylinayo ayuu hurdada ka kiciyay. Waxa uu yiraahday maxaa ku seexiyay meeshaan? Ninkiina waxa uu yiraahday waan daalanaa sidaas ayaan meeshaan u seexday. been hawaasna wuxuu yiraahday soo ma ogid in aanan cidna u ogoleen in uu geedkan hoos seexdo ilaa oo lacag dhiiba maahine. Ninkiina waxa uu yiraahday adiguna ma aad joogin anigana safar ayaan ka imaaday daalkaas awgeed ayaa meesha u seexday. Ka waraniyahow ma iga wareejisid aan sii seexday. been hawaasna wuxuu yiraahday maya ma seexanaysid. Ninkii ayaa yiraahday oo ka waran haddii aan maanta aan lacag dhiibin. been hawaasna wuxuu yiraahday waan kuu gacan qaadayaa wixii aan kala helno ayaana leedahay. Ninkiina waxa uu yiraahday anigu dagaal diyaar u mihi. Lacagta u baahan tahayna waan ku siinayaa. Laakiin ka waraniyo geedka hoos harkiisa haddii aad iga iibsatid oon maalin dambe aad lacag i weydiinin. been hawaasna wuxuu yiraahday waa diyaar haddii aad dhiibayso 5 diinaar. Ninkiina wuxuu yiraahday waa yahay ee qaaliga noo geey agreement aan kala qoranno. Meeshiis ayay imaadeen waxayna ku heshiiyeen ninkan geedka maalin walba in uu harsan karo xilli walba iyo meel walba oo geedka harkiisa uu aado. Sidaas ayuu lacagti ku qaatay been hawaas 5 diinaar. Asaga oo faraxsan ayuu gurigiisa soo aaday been hawaas aaminsanna maanta in uu lacag fiican helay. aad iyo aadna u jeclaaday geedka uu yiraahdo maanta niyow lacag fiican ayaad ii soo hareysay. Dhanka kale ninkii waraaqdii loo qoray ee ahayd geedka inuu harsado xilli walba iyo meel walba oo harkiisa aado oo faraxsan ayaa asagana waxa uu soo aaday gurigiisii. Maalinkii dambe markii la gaaray ayaa ninkii waxa uu soo aaday geedkii been hawaas. Wuxuuna iska hoos seexday geedkii hoostiisa ayuu seexday. Cabaar markuu jiifay ayaa geedkii harkiisii ka durqay oo dhinacii gurigii been hawaas xaggiisa ayuu aaday. Ninkiina barkintiisii ayuu ka daba qaatay oo waxa uu ka daba guuray hooskii ilaa oo hooskii uu galay gurigii been hawaas. Kadibna ninkii waxa uu ka daba galay gurigii been hawaas oo deerkii dhexe ee gurigii been hawaas ayuu seexday. been hawaasna aad iyo aad ayuu arintaas uga xanaaqsanaa. Laakiin markasta oo arko waxa uu soo xasuusanayay waraaqdii agreementigii ama heshiiskii ay wada qorteen. Arintaasna oo ninkan uu sameynayana waxa ay noqotay arin daily ah oo maalin walba ninka waxa uu soo aadaa gurigaas been hawaas. Hooskana waa uu ka daba guuraa oo guriga been hawaas ayuu ula guuraa. oo maba baajiyo oo maalin walba sidaas ayuu sameeyaa. been hawaasna waa uu la yaabanaa arintaasna waxay ku ahayd dib aad iyo aad u fara badan ayay ku ahayd in gurigiisii la soo dhex galo. Waxna kama uusan qaban karin oo heshiiska ayaa waxa uu ahaa geedka haddii harkiisa meel kasta uu aado ninkan in uu raaco harkaas. Maalinkii dambe ninkii ayaa waxa uu meeshii martiqaad ugu sameeyay saaxiibadiis. Meeshaas ay raashinkoodii ama qadadoodii ku cinayeen ayaga oo faraxsan oo sheekeysanayo. been hawaasna waxa uu maqlayay qeyladaasi aad iyo aad ayuu u dhibsanayay waxna kama uusan oran karin. Markaas oo soo fiiriyo oo nimankan si u faraxsan yihiin oo u sheekeysanayaan oo arko qeyladan markay badiyaan dhigaha buu faraha gashanayay maahane wax uu ka qaban karay ama uu ka sameyn karay ma isan jirin oo heshiis ayaa u horeeyay.
markii uu harkii geedkii guuray oo gurigii beenhawaas oo geedkii harkiisii aadayna waa ay ka daba aadeen ayagoo guriga dhexdiisa ku sheekaysanayo kuna qaraxaysanayo. beenhawaasna waa uu la yaabanaa wax uu sameeyo waa uu garan la'aa. waxa uu dhahay 5 diinaar dhibaato badan ayay ii keentay, anigu farxad ayaa moodayay laakiin rafaad ayay ii keentay. arrintaasna muddo badan ayay socotay oo dhibkiisa uu qorsanayay. maalinkii dambe saaxiibadiisii iyo ganacsatadii magaalada iyo ninkii magaalada amiirka ka ahaa ayaa waxay yiraahdeen beenhawaas waxa uu ogaaday in uu guri weyn iibsaday. waxayna yiraahdeen beri martiqaad gurigaaga ayaan kuugu imaanaynaa. beenhawaas aad iyo aad ayuu u yaabanaa waxa uu arrinkani uu ka sameeyo maadaama ay beri saaxiibadiis imaanayaan, nimankaana ay imaanayaan, arrintiisana ay ogaanayaan. waxa uuna damcay in uu nimankan iska celiyo. haddana waxa uu soo xasuusanayay agreementigii ama heshiiskii ay qoreen. habeenkii markii la gaaray oo seexday, hurdo waa ay ka soo dhici weysay oo waxa uu ku fikirayay waxa uu arrinkan ka samayn lahaa. ninkii wuu imaanayaa beri waa uu soo fadhiisanayaa asaga iyo saaxiibadiis. amiirkiina beri waa ku imaanayaa, saaxiibadana way ku imaanayaan. taajiriintii magaaladana beri martiqaad adiga ayay kugu leeyihiin. talow maxaa samaysaa, xaggee wax ka bilowdaa? waxa uu damcay in uu saaxiibadiis ama ganacsatadii oo maalinkaas baajiyo. waagii markii uu baryay ayuu waxa uu aaday ninkii amiirka ahaa iyo saaxiibadiis. marka uu salaamay ayaa amiirkii waxa uu yiraahday beenhawaasow, waxaan maqlay in ay noloshaadii isbedeshay, damacii badnaa aa iska dhaaftay, guri weyn aad dhisatay, meesha magaalada laga soo galo aad guri weyn ka dhisatay. adoo ayaamahan wax raadinayana kuma aanan arag. maantana martiqaadkaada aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay, hanaga baajin waan ku imaanaynaa. markii uu amiirkii saas u ammaanay, beenhawaas aad iyo aad ayuu u farxay. kadibna wuxuu yiraahday ninka tartiib ula hadal oo iska laaluush. beenhawaasna iyo amiirkii iyo saaxiibadiisna waxa ay soo aadeen gurigii beenhawaas xilligii qaadada markii la gaaray. laakiin waxay u imaadeen nimankii kale oo meeshii fadhiyo oo deerkii gurigii beenhawaas soo galay ayagoo soo raacay harkii uu geedka, maadaama dhanka guriga beenhawaas uu harkii galay. markii uu imaaday ayuu ninkii heshiiska ay wada galeen ayuu gooni ula istaagay. waxa uuna yiraahday niyahow, maanta amiirka iyo ganacsato iyo niman saaxiibadeey ah ayaa ii imaaday, waxaan doonayaa tartiib inaad iga wareejisid. asaga oo dhegta afka u saaray si aysan amiirka iyo saaxiibadiis u maqal waxa meesha ka jiro. laakiin ninkii heshiiskay ay wada galeen ayaa qayliyey oo wuxuu yiraahday anigu waxaas ma yeelayo, waan heshiinay, hooskaana waan ka iibsaday, mana aqbalayo, waxa aad rabtid sameey. amiirkii ayaa maqlay qeyladii markii ilaa ninkii wax dhan dadkii dhan ayuu wada gaarsiiyey. ninkii wuxuu yiraahday sidee wax u jiraan? ninkii ayaa la soo baxay waraaqdii agreementiga ay wada galeen. amiirow, waraaqdan ayaa ninkaan noo qoran oo waxaan ku heshiinay hooskiisa in aan ka iibsaday, xilli walba iyo meel walbana aan la tago, waxaana ku heshiinay qaaliga hortiisa ayaan ku heshiinay. beenhawaas taladii ayaa ku caddaatay. amiirkiina waxa uu yiraahday beenhawaas waxa ay tahay nin damac badan oo aad iyo aad hunguri xun. qofka damaca badan ee hunguriga xunna maba isbedelo weligiis haddii uu lacag kasta yeesho. nin adiga kula mid ah oo hooska gurigiisa dadka ay ku nasan lahaayeen iibsanayo, wax aan gurigiisa martiqaad ugu imaana maba ahanba. wayna ka tageen ayaga oo xanaaqsan. beenhawaas meeshii ayuu ku soo haray. taladii ayaa ku caddaatay. ninkii ayuu yiraahday niyahow, waraaqdan heshiiska waa igu dhibtay ee ma i siisid. ninkiina wuxuu yiraahday waan ku siinayaa, laakiin iga iibso. ninkiina beenhawaas ayaa yiraahday imisa ayaan kaa siiyaa? ninkii ayaa yiraahday waxaad iga siisaa 100 diinaar iga sii. beenhawaas ayaa yiraahday 100 diinaar kaama siin oo 5 diinaar ayaan wax ku kala iibsanay. ninkii wuxuu yiraahday markaas adiga lacagta u baahneed, laakiin anigu lacagta uma baahni, hooska ayaan u baahanahay. maadaama hooska iga iibsanaysid 100 diinaar iga sii. beenhawaas tala ayaa ku caddaatay. meel uu wax ka bilaabo ayuu garan waayay. kadibna hooskiisa si uu u helo oona u nasto ayuu 100 diinaar uu ku bixiyey.
ninkii boqolkii diinaar ayuu qaatay, lacagtiisii ayuu qaatay. bin hawaasna waxay ka dambeeyey hooska gurigiisii, cid dambe kuma uusan dhibin. halkaas ayay maanta sheekadeena inooga eg tahay. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waad mahadsan tahay sida aad noola socotay.